waxaa muddooyinkii u dambeeyay khilaaf baani soo kala dhex galay shaqaalaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyada oo muddooyinkii u dambeeyay suqmaasuq baasani hareeyay hay'adda guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo indhaha shacabka Soomaaliland isku dayaya in ay majara habaabiyaan waxa ay shir jiraa'id ku qabteen xarunta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyaga oo ku beeninaya wararka xaqiiqada ah ee ka dhex aroonsan guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa muddo laba sanadood ah wax khilaafo guddidan dhexmaray haba yaraatee may dhicin ku dambanay ilaahay idinkiisa dhexmari maayo ku dambanay ilaahay idinkiisa dhexmari doonin baan rajaynaynaa taa macnaheedu waxa weeye guddoomiyaha oo guddiga Maxamed Xuseen wax awoodaha uu guddidan dheeryahay ma jirto aan ahayn marka aanu arin eegayno ee aan eegayna qandaraaska kala saaristiisa isagu wuxuu na dheeryahay wixii aanu guddoomino wixii aanu isla qaadano ee aanu majority isku qaadino guddoomiyaha oo uu u sheegay dadweynaha iyo media inaan wax khilaafahi guddida dhexmarina waxa ka marxaati ah hal case ama hal qandaraas oo wali wax muran ka dhacay ma jirto guddida qandaraasyada qaranku markanu aragnay baaxadda ay leedahay iyo hawsha ay leedahay guddigu way fadhiisatay waxay go'aan ku gaadheen in aanu ceiling price aanu maanta bixinayno tartamayaasha aanu ka qaadano haddii cid la wato ama guddoomiyuhu wato ama guddidu wadato waxa weeyaan dee taamaanu yeeleen saddex barays baanu samaynay saddexdaa barays oo kala ah $16 in tirigii lagu keeno 15 senti in ka labaad lagu keeno 15 badh in ka saddexaad lagu saddex barays baanu samaynay waxaanu weynidhi ka soo saara ninka uu aaminsantihiin idinku daada weyn leh haydii qaado tu qaada baanayno ah mataqaanaa silin baraski wax lagu helay ninkii u weynaa oo ninka sheekh haysta niil hotelka tabliiqinta ee sheekh Aydid la yiraahdo ay iska soo saareen uu baaray wuxuu soo qaaday 15 badh asagoo wuxuu ku soo qorto ku tartamay 15 senti ku tartamay hadduu taa qaadi lahaa siga heli lahaa wuxuu qaaday 15 badh 15 badhkii uu qaaday laba shirkadood baa isku soo hadhay labadii shirkadood waa la baaray guddidu markay baadhay si wada jira oo aan guddoomiye la gaar u ahayn nin kale la gaar u ahayn fadhi ku dirna gaar u ahayn misuq ka hadlana gaar u ahayn waxa weeyaan waxay soo saartay kii ay ilaahay ku ilaahay inuu cadaalad ahaan u helay oo shirkadda imika gacanta ku haysa ee aflax ayaa heshay markay heshana tii kale waxaan ku dhahay dad cabanayso diyaar bay ku tahay lagu kala kici maayo waxaad ku hadhay wixii mataqaanaa aad ku hadhay waxaan bari yeelaya inaanu qaraabikil ka dhicin halkan inaan guddiis khilaafsani ka dhicin inaan cid loo naas nuujiye ka dhicin waa daacad ilaahay baan ku soconaa dad isku xidhana waa nahay markaan meesha soo fadhiisanayno iyo marka kaleba waxaan ka wada baaraandega oo halka xeer ku cad yahay oo wada eegtiin oo transparent ah iyaan ku shaqeynaa ujeedo guud oo xafiiska ku aasaasan baa runtii lagu shaqeynayaa oo in madana loo soo bandhigo ciddii ku guuleysatana la siiyo sida cad ugu guuleysata waxaan leeyahay in shacabina Jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiska ka markay shaqada xafiiska daneeyaasha ay ka yihiin shirkadaha tartamaana sidoo kale uu ogyihiin xafiiska gudihiisa waxa yaala annagu dadka iyo dawladooda aanu dhaxayna wax noo gaara oo meel noo yaala ma jiraan sida hufan ay xubnaha guddidu sheegeen ayaan miiska u dhignaa qandaraaska lagu tartamayo waa transparency way iyaga marxanti nooga ah oo nala fadhiya midka hortooda lagu furaa mar labaad ku celinaya inaan waxba ka jirin waxyaalaha baraha bulshada lagu faafiyay waa Mustafa Ahmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV magaalada Hargeysa.